بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ku bilaabaya magacay waa Farxaan Muuse Cabdi ku magac dheer qorsheeye fikirkan ka qabo dastuurka in dib loo furo horta anigu dib furasho kaliya ma aha ma aaminsan waayo meelo fara badan diintii ka hor imanaya oo laga sareeyay markii horena dadka waxa loogu dhigay dastuur baa loo codeynaya lama oran in waxa lagu yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya loo codeynaya si nacaybsho ay u qabaan ama dib ugu noqosho ay ku qabaan Soomaaliland dib ugu noqdaan ay loo codeeyay wal hoos dhigan aan oran karaa dastuurka markii hore looma codeynin waxa loo codeeyay in Soomaaliland ka gano imikana waxaan leeyahay dib ha loogu noqdo oo waliba hala yiraahdo diinta iyo dastuurka aan wax laga tuuro kaliya anigu ma aaminsan laakiin waxaan lahaa diinta iyo dastuurka dadkeenu dad islaamina boqolkiiba boqolnahay waxyaabaha naga qaldan 26 ka sano ay kamid tahay baan oran karaa anigu dastuurkan calaamadeena iyo astaanteenuna tawxiidkii baa ku qoran kitaabkeena waxaan isku maamulaynaana waxa ilaahay quraankiisa ku yiri waman lam yahkum bima anzala Allahu fawlaa'ikum al-kaafiruun فولاكم الظالمون يا خط هبق قوم دستور كاي دينta halkii ay ka taagan tahay marka islaamkan isku xukumo dastuurkana qodob halkii la oranaha laga saaraa ma dib ha loogu noqdo diintan isku xukuno waxyaabo fara badan ka hor imanaya jira ma taasi waa fikir aad iyo aad muhiim soo dhaweynaa doodada xinala leh waana soo dhaweynayaa qodobkaas in dalkeena la leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu ah Xamsi Maxamed Xaashi waxaan hor lahaa waxa weeyaan arin loo baxnaa oo in badan la sugayay oo dadka Soomaaliland aanay dhalinyarada Soomaaliland waliba dhalinyarada waqooyiga meesha dhaxal yiraahdo aad baan soo dhaweynaa waayo dastuur ahaan waxa weeyaan dad waxa weeyaan naga maqnaadeen maanta hadii la yiraahdo waxa weeyaan waan soo dhaweynaa oo la yiraahdo dastuurka dib loogu furo waxaan anu qabaabay in baarlamaanka xataa in loo kordhiyo in waxay xaq u leeyihiin dastuur ahaan dib loo eego dastuurkeena Soomaaliland xaq badan la siiyo aynu soo dhaweyno dadkan waxa weey khaatimo wadadna la dhashay wadada isku jirnay wadada in maanta anagu dhalinyar ahaan aan tabin maanta siyaasiyiintu hadii dadkii kala fogeeyaan dad dhalinyarna anagu aad u soo dhaweynaa waxaan hor la dib loogu furo waxyaalaha xaq u leeyihiin dastuurka ka maqan ha loo siiyo waliba baarlamaankana aan waxaan hor la gudoomiyaha baarlamaanka kala siiyo wixii xaq u leeyihiin dastuurka ka maqan خلص يا نور بسم الله مقعي وحسن حسين نور runtii waxaan qabaa in markii Soomaaliland nahay waxba in deedayna اعتراaf wada kala maqan waxaan leenahay hal اعتراaf marka runtii waxaan leenahay horta bal wadankeena in dhameystir markaas in اعتراaf leenahay caalamkuna way nala socdaa marka raayaan waxaan qabaa in dastuurka loo furo xaqay leeyihiin la siiyo saasa qabaa horta aniga kamid ah dhalinyarada reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada ku nool caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliya horta wax walba waxay leeyihiin target iyo sameys dastuur maadaama la leeyahay maanta waxaan reer Soomaaliland waxaan ka goosanay dalkii aan markii hore wax isku darsanay maanta kan in khaatumo oo kamid ah gobolada Soomaaliya ay markii hore waxay cadaan karta oo la leeyahay khaatumo kama mid aha reer Soomaaliya oo muhiimadeedu taas waa soo wanaagsan laakiin khaatumo markii hore miyay kamid ahayd Soomaaliya mise kama mid ahayd haday Soomaaliland kamid ahayd oo ay hayaan walaaleen oo khilaafna dhiciyay dastuur iyo dawlad iyo wada dimuqraadiyad iyo itraaf in maanta dib loo furo waxaan arkaa shakhsi khalad waayo wax sax ah oo munaasib ah ilmaha hadii cid walba loo furayo leeyahay qaar kale loo furaya barina deerar qabiil bay galaysaa dawladdu qabiilnimo yey naga gelin wati horeba loo yiri dugsi meel qabiil waxay dinuusamooyeen aniga waxa la yiraahdaa Mawlid Jaamac Ali Mataan oo ku nool magaalada Hargeysa kamid ah muwaadiniinta Soomaaliland oo dhashay ku nool magaalada Hargeysa walaal dastuurka horta ma wax qof loo furo amba la xiro waa wax dadka u yaalo oo cod in laga qaado muhiim waayo khaatumo waa walaalihiin 60 kiiban walaalahay imikayn walaalahay kama marno Ali Khaliif Galeed waa muwaadin Soomaaliland oo dhashay ahna jaamici u baahan inuu madaxweyne xitaa dalka ka noqdo oo musharax ka noqdo oo waliba aan oran lahaa isaga ku yarooysiiyay in la yiraahdo Faysal Carwo waa musharax noqdo si ayaan codsanaa laakiin Ali Khaliif Galeed iyo khaatumo walaalayaal waxaan bulshada Soomaaliland ay ku walaaloobina waa dastuurkana ilaa la socod amba buu howlaha noqotay ilaa Soomaaliland darf ila darf codka hal laga qaado in la furo in la xiro in la xidhnaado faarax abdida la yiraahdo xooli ku magacdeen mujaahid xooli baa la yiraahdo Soomaad garan waxa weeyaan aatumo hadii laga hadlo وهذا ومقرنسا شخص جبهة سمية وجبهة يربى سمية وحاسين دولة الصومال لأن مدبّرا بيسوس عتي وحويان وهو البويين وحويان إنا مقرنسا دستورك ومداره نملها قول قولين ملها برلمان قولين ملها
ummadoo la weydiiye mooyaane dastuurka cidi furi kari mayso waa mamnuuc waxa weeyaan fikirkayga ku aadani waxa weeyaan inaan lama furi karo dastuurka loomana furi karo khaatimo anna layma furi karo sharci shakhsina looma furi karo ummad 197 baanu ku footaynay 97 boqolkiiba ayaa Soomaaliland loogu footay dastuurku sidiisii un buu yahay xeeradana faraha la wada gelinaya waxba lagama laha qaatimo rarkan waa inuu dhigaa oo rarku waa hubkii dhulka dhig annaguna waanu dhignay marka fikirka waxa weeyaan walaaleena waa dad reer Soomaaliland waa dalka weyn la leeyahay dib iyo dhanaawinta weyn la leeyahay laakiin waxaan laakiin jidanahay dal dastuurka la furo dastuurka in cigaariyo odayaashii xagaradka ay ilaahay lagu masto karasta dalka loo soo maray iyo Soomaaliland loo soo maray iyo ilaahay lagu masto in cigaalmaanta ma joogo odayaashii xagaradka ay lama hubka dadka dhigaya nidaamka ma joogan anigu waxaan aaminsanahay dastuurka hadii la yiraahdo la furo oo khabalaalay qaatimo saal lagu furo oo sida marka lagu furo ka bacdina barina aniga banaanka u baxaya ka bacdi waxaan oranay dastuurka la furo maxaa markay joojinay ilaa tanba waa tan loo furay maxay joojinay ama aniga waxay la tafiirayaan dastuurka la taataaban dadweynaha ayaa leh bulshada ayaa leh ma aha in la taatabo dalka khaatimada dastuurka loo furo waxay la tahay magaca dastuurku ma aha horta oo waxay dawladda jamaculay dawladleeday muwaadiniinta Soomaaliland oo dhan marka hore iyagu meena ka tirsan muwaadiniinta Soomaaliland ma leh haddii muwaadiniinta Soomaaliland ka tirsan yihiin تمشوا مها تصوركم مها الباب لحده ما قرنا سا وعد والبوفرين تحدث الكلام ما قرنا سا أيوسو ولا لا ما قرنا سا اللي إنه بفرع ساس وسيد ساعة حنا وعدنا موادك عندنا كم حنا ما لا تصور كتر سنة نيرتا مقالة هالكيسة أنا كفكر كي جوحان قبع خاتم وضد كتر سن سومال ده حدي مركز شرعي اللي ديجي يو دستور كل الدجسين يي أي iyaga wax de u fududeynaya waxyaabo badan laga reebay waxaan jeclaysan lahaa anigu fikirkaygu yahay in dib u furidaasi ay sax tahay sababtoo ah waxay saluugeen ee ay intaaba dib inooga joogeen haddii loo furayo oo qodobadii ay saluugsanaayeen laga jabinayo horta in dastuurka dib loo furo fikir wanaagsan aniguna waan ku taageersanay dawladdu inay dib u furo waa dastuurka ilaa xilligii loo codeeyay dib looma furo kitaab quraan soo degana ma marka waxyaalo badan baa soo kordhay waxyaalo badan baa u baahan in la furo anigu waxaan arkaa in arrin muhiim ah tahay in dastuurka khaatumaha in sidiisaba loo furo waxyaalo fara badan oo dastuurka ku jiro qaar ay khaladaad yihiin iyo waxyaalo badan oo la taban iyo dastuurka ku jiro in la furo muhiim baan u arkaa waana soo dhaweynayaa khaatumay arrimaha kale quseeyo in dastuurka la furo oo dastuurka dib u eegis lagu sameeyo aad baan marxim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tamarka hore aad iyo aad baan soo dhaweynayaa groupka reer khaatumo soo biiray iyo inamada Soomaaliland iska shaqeeya tifiyada oo hawlan bulshooyinka Soomaaliland marka hore waxaan leeyahay doorta dastuurka Soomaaliland waa labadaba uu furan yahay marka hadiya jeer dastuurada caalamkana waa la bedelay wixii dadka anfacaya qalba soo kordho lagu bedelaa waa laga furay marka aan taageersanahay in dastuurka Soomaaliland dib loo furo oo dib loo eego wixii dadka u munaasibana lagu daro wixii aan munaasibhayn laga reebo taageersan khaatimo loo furo iyo in dadweynaha loo furo labadaba oo dib loo tafniido oo qalba waxba kordhaya dunyada waxba isbedelaya kaadi aad baro taageersan maantii waxaa jira waxyaabo badan oo dastuurka qabyo ka ah oo xeersan meelan oo dastuurka marka khaladaad badan ku jiro marka khaatimo kaliya ma ahayn loo furo dastuurka wax badan oo khaldan baa ka buuxay marka dawladda waxaan leeyahay khaatimo markii aad wada hadalka la sameyseen bay idinku dhalatay inaad dastuurka dib furtaan mise waxaydan aydan dhugan ama aydan ka warhayn xeerjajka khaladaadka ka buuxa dastuurka maalinba siyaasiyiinta dalku ay ku diganayaan oo ay ku tumanayaan waxaan leeyahay khaatimo kaliya dalka kuma noola Soomaaliland cid walba dastuurka way u baahantay waa inay ku tirsantahay waxaan leeyahay dastuurka dadku ha wada sinaadaan khaatimo kaliya uma baahan khaatimo khasab waa fiicantay in dastuurka dib loogu furo wadad walaalaheena Soomaaliland wayna leeyihiin calanku wayna leeyihiin dalkana wayna leeyihiin
لبا دستور إن دب لو فرو هرتوا هو ده الشيء كرو ومدة هرتوا فيها marka dhan loo eegay Soomaaliland sababtoo ah goboladii bariga ayaa wax ka maqnaayeen baa ay dib ugu soo noqonaya kadibna waa la heshiiyay marka aan kulaba shakhsiyaantayda saasan marka wax aad badan